Isbitaalka Sanaag Speciality Hospital oo ku yaala magaalada Ceerigaabo oo kaalmo ka helaya hay'adda Sanaag Healthcare Foundation ayaa deeq caafimaad oo bilaash ah maanta ka fuliyay degmadaasi Ceelaf Weyn, gaar ahaan xarunta hooyada iyo dhallaanka ee degmadaasi Ceelaf Weyn. Deeqdani oo isugu jirtay xanuunada hooyada iyo dhallaanka, cudurrada guud, waxaana ka warbixiyay deeqdaasi Cabdiraxmaan Xuseen Digaale, maamulaha hay'adda Sanaag Healthcare Foundation oo isbitaalkani Sanaag Speciality Hospital uu ka helayay kaalmada gargaar caafimaadka ee dadkani loo filinayay maanta. isbitaalka Sanaag Speciality Hospital oo kaashanaya hay'adda Sanaag Healthcare Foundation maaha markii u horeysay oo adeeg caafimaad oo bilaash ka fuliyo degmada Ceelaf Weyn. hadda ka hor waanu nimi maanta se waxa la diiwaan geliyay dad kor u dhaafaya 250 ilaa haddana waxaanu shaqaynay dad gaadhaya 219 qof. waxa aanu maanta keenay 4 dhakhtar oo mid yahay cudurrada guud, midna yahay hooyada iyo dhallaanka iyo mid qaliimada guuda. runtii adeegan waxaanu ka fulinay MCH-ka labaad ee degmada Ceelaf Weyn, mana aha markii u horeysay oo sidan oo kale aanu nimaadno deegaanka degmada Ceelaf Weyn aanu adeegan oo kale ka fulino. marar badan oo kalena waxaanu rajaynaynaa insha Allah inaanu sidan oo kale samayno. guud ahaan adeega caafimaad aynu halka ku bixinay wuxuu ahaa bilaash, shaybaadhka, dawooyinka iyo consultation-kuba. geestooda waxa ayna halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah shaqaalaha isbitaalka Sanaag Speciality Hospital ee maanta deeqdani caafimaad u fulinayay dadka tiradoodu gaadhayso ilaa 200 oo qof. General Surgeon working with Sanaag Speciality Hospital. It's an outreach camp at town. It is my first time and I'm really enjoying it, that we are taking the services to the people, and I look forward to having more services where we can bring back to the people and help them in their own needs. Look forward to more and thank you very much. That's all, and thank you. markii hore aan ka shaqeynay degmada Ceelaf Weyn, maahana markii uu dambeysay aan ka shaqeynayno markasta waxaan u helanahay inaan caafimaadka aanu gaarsiino dhammaan deegaanada gobolka Sanaag iyo degmooyinkiisa iyo tuulooyinkiisa. runtii adeegan uu qabta isbitaalka Sanaag Speciality Hospital oo adeeg aad iyo aad u ballaaran oo ka qabto degmada, adeegii caafimaadkii oo haday tahay xanaanadii, xanuunadii guud, qaybihii dhakhaatiirtu ay ku soo arkayeen qaliinka, shaybaarkii, farmasigii, dhammaan wuxuu ka kooban yahay Sanaag Hospital oo dhammaystiran oo guuraya. waxaana muhiimadu ma aha inaan isbitaalku magaciisa ku raadiyo sidii dadka uu u gaarsiin lahaa ee u baahan baahida ka jirta. markuu arkay deegaanka gobolka Sanaag baahida aad ku ballaaran oo arkay ka jirta gobolka Sanaag ayuu sameeyay. gabagabadiina waxaa isaguna halkaasi ka hadlay maamulaha wasaaradda caafimaadka ee degmadaasi Ceelaf Weyn, Dr. Xamse Jaamac Axmed, ayaa isaguna dhankiisa u mahad celiyay deeqdan caafimaad ee maanta ay fulinayeen isbitaalka Sanaag Speciality Hospital. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا وزارة العافية دegmada Ceelaf Weyn waxaan uga mahad celinaynaa Sanaag Speciality Hospital iyo tiimka hogaaminaya Cabdiraxmaan Xuseen Digaale. adeega caafimaad ay ka fuliyeen degmada oo ay adeeg caafimaad u fuliyeen hooyooyin iyo dad maxay tahay u baahnaa adeeg caafimaad oo baaritaano kombiyuutarada ultrasound-ka iyo adeeg aad u heer sareeya. runtii anagu ka wasaarad ahaan ama degmada Ceelaf Weyn waanu soo dhaweynaynaa cid kasto bulshada caafimaadkeeda wax u qabanaysa ama kor u qaadaysa. aad iyo aad bay ugu mahadsanyihiin Cabdiraxmaan iyo tiimkiisu. insha Allah ayaanay noqon markii koobaad aad noo timaadaan marar badan in adeegyada iyo adeegyada midba ka fulisaan waanu soo dhaweynaynaa. aad iyo aad